السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاتوش على صو هذا يسقول كذا كسر هذا أصحابته channel كان عصب فاتوش channel كانوا أش فري إن واردين توقف فائدة channel كلنا ونون يسكي أفارها عصب كي لعكتي يعني يا اسكو هاد كسوة إن شاء الله كنا وحنا هاد كتب كي المها مرك وحاسبيسين انتاب اسكالك مالدي جرى مسنين اسكالك intaad xigi iska dhigtiin channelka subscribe saara oo waxaan ku iri 1k bal horta hal mar ha hindhiso channelku ma furna ilaa 1k oo subscribers uu ka boodo marka maanta insha Allah subscribe t-shirt iyo like ugu didaala asxaabtaada la share gare meeshaan faatush wax kasta oo u shaqeey oo idea oo fikrada ayay wax ka soo siinaysaa haday cunto ilma ahaan lahayd haday fikradaha shopping ahaan lahayd haday lacagaha sida loo dhaqaaleysto ahaan lahayd haday de familka wax kasta oo familka ku saabsan insha Allah wax kasta faatush isticmaasho haday face ahaan lahayd haday ahaan lahayd tin haday ahaan lahayd anything ilmo wax kasta igu shaqeey wax aan qarin doono ma jirto laakiin hadaa subscribe saari doontiin hadina saarin oo channelka laakiin anoo qarsan haasoo maanta waxaan rabay inaan la share gareeyo anoo ilmihii dharkoodii diyaarinayo iskuulka oo organize gareynayo diyaarinayo iyo bahalada aan isticmaalo meelaha aan ka soo gaday dharkii aan soo gado shopping ha shalay waxaas oo dhan baa maanta share gareynaya insha Allah marka hadda noo bilaabanay dharkii dhulku ii daadsan yahay wixii kala aan soo gado dhan waa irtusa insha Allah because gabdho badan baa waxay dhaheen faatuushay midka xagee ka soo adeegatay dukaanka noo sheeg marka wixii dukaankii wixii dhan aan tusaano secret ka dhan aan kaga dhaca maanta soo dhawaada aan ka bilaabaynaa kabaha kabooyinka soo gaday shalay meelaha ka soo gaday ana inii sheegaya kan waay nakasa ma sha Allah seel baa jiraya seel kan ka faa'iideysta markay seel ka tahay qatar waay tan gabadheeda askara kaba badan way u yaalaan ayakan ka soo gaday hal meel ka soo gaday kan waxa iskale wiilka yarka iskale maybe he's gonna go to preschool marka asagana waa in wax loo soo gadaa kabooyin way u buuxaan oo marka san kabooyin u gadaa kana wala wiil oo isku soo eekay kan weyn askale ma soo kabooyinkaas ka soo gaday aad u qurux badan tanka ana inii sheegi doona yaa kabaha xagga noo dhig marka kabooyinka ay meel ay leeyihiin oo hadda koor gabdhaha waa la soo share gareey meesha kabaha aan kabaha ku organize gareysta aad ii anfacday ma fahad aad ii anfacday marka haddana waxaan la share gareynayaa dharkii baan tusay insha Allah dharkana waa kuwana soo aragtay saakooyinkaas dukaanka ay ii sheego dukaanka waxa la JC Beni ma fahad dukaanka shalka adeegay JC Beni baa la dhahaa marka waa kaasa inta cambuuradeeda ma sha Allah ofayna gadaayeen hadda kana kale waxa ku qoran ya marka waxaan sameeynaa tayar ayadana meel ay leedahay bahalada wax ku organize gareeyo waa inuu tusaaya kana kala isku meel ka soo gado shaati waa aad u macaan oo jilicsan seel buu ahaa markiisa kala caadiga waxa ku qornayd waa kaasa laakiin seel buu ahaa ma waa kaasa wixii dhan aan shal soo adeegay inta tusaya ma say gabaamoy gabdho uga faa'iideystaan cambuuradaas ma artid waa kaasa ya cambuuradaas ka soo gaday ma sha Allah waxaan kala ka soo gaday surwaaladii wiilasha iskuulka lagu aado ما شاء الله وقروح كلي واي كل كارتيا كيريسا غير جلع واي شلا وحي قبين وحي لهاين 60% off لهاين مركا إنه عادي معهن يا كان هذا مركا عادي قدنا يصير بحالكو كجوعي بحالكو كذاي وكجوعي $40 وها I think half price وها هذا ما كان سوا قدنا يا ما شاء الله واي waxaan kala soo gaday fanaanadahan waxa la xiran karaa marka ma aragtay uu san qabow jirin oo caadiga oo 70ga 60ga fanaanad garankiisa ugu hoos gelinaysa dhac waay isku halkaas meel ka soo gaday cambuuradan gabdhaha yarka waxay ugu fiican tahay surwaalkooda u xira inay gabadheeda ma jeclaan surwaal shaati iskuulku aad marka cambuurkeeda u xiraaya cambuurkaas oo kale ay ko badan soo gadaa waxaan u xiraaya maxaa la dhigi jiray surwaalkeeda dhac iyo xijaabkeeda marka waxa dhan ana organize gareyna ana intu saay ma fahantay waa kaasa way badan yihiin
marka inaan xabad inay tuso qasab ma ahan laakiin fikradda inay sheegaa waxay tahay marka ilmaha dharka u gaday saalka laga faa'iideystaa yah saalka laga faa'iideystaa ma aad ay ku anfacaysaa waxa soo dhan hada gabdhaha ilaahay JC Benefatushay dhar dhan waan ka waayay nasiibka waa aniga xaafadayda ku yaala ayaan ka soo gaday waxaan aan ka gatay ma yah waxa soo dhan aan ka gaday waxaas dhan aan tusay had isku hal meel ka soo gaday meel kale ma aan fanaanadahaas oo kale cunuga markii uusan qabow jirinin iskuulka uniform buu agtaa markaas u xiraysaa war Allah ma sheegi kariya ku dhaatiradooda yah waa kaasa fanaanadahaas waxay ku fiican yihiin marka caadiga hadda weatherkan lagu jiro ayaa loo xiraa cunuga especially markuu xataa oo September la galo oo qabowga garankiisa daa u xirtid oo yacni uu 65 weatherku uu iska yahay is okay waay oo maanta hore dee cunug iska ordaa iska waxa garankiisa haduu xirta dagdag ay ku tahay marka fanaanadahan oo kale waxaa la soo badsadaa waqtiga uu soo galayo foolka ma fahanti foolka uu soo galayo online hadaa ka dalbatina okay waay yaa waxaasoo dhan waa kaasa cambuur waaye gabartayda koo madoobana waan haysanaa awal baan ka qaraabin jiray cambuurada because wuxuu ku fiican tahay yaa surweelkeeda jek marka u tahay maraq fudud waaye iskuulka markii cunugta hadda 5 jir aadaysa cambuuro dheer ma loo xiri karo because daa waa ilmo yar ma fahanta because ina bartidna waaye ababintii oo dharka ahaa kan waa dad waaweyn al cunug maahan waa weyn waxa waa markii oo shopping ku jiray marka insha Allah waxa ina tusaaya haddana meesha aan ku kala organize gareeyo dharka baashaasaan isticmaalaa almost ilmahayga dhan way haystaan waxay baraysaa ilmaha sida wax loo organize gareeyo waxay baraysaa cunuga inaa responsible noqdo oo asag uu hagaagsado marka hadda dharkii meeshaan soo dhoobanay waxaan tusayaa bahashaas saa ugu hagaagsado dharka insha Allah baasha markii waxay ka bilaabatay Sunday Monday Wednesday Thursday Friday Saturday markaysa maasha Allah saasa ugu kala rudaysaa maxaa la dhihi jiray shanta bir inta ugu rido ayaa waxaan u samaynayaa markasta cunuga asaga soo qabsanaa hadda markaan xataa waxay ka caawinaysaa xataa ilmaha markii aan aniga dharka aan u laalaabay anoo fadhiga iska fadhiinta dharka soo laabto waxaan leeyahay kan qaad waxa soo gelisay Friday kan qaad waxa soo gelisay Thursday kan qaad waxa soo gelisay Wednesday saas cunugu kala fahmaa inta jeebaday ka leedahay jeebadahaas waxa ugu ridaysaa soksiyaanta kastuumada waxyaabahaas ma fahan waxyaabaha aad rabtid cunuga inta leedahay 1 2 3 jeebada geesaha leedahay ma fahantay soo bahashaas isticmaala insha Allah linkigeedana ana in tusaay hadii la meesha ka dalban kartid waa hawl fududays hooyadii rabta subaxda inay soo ordino gab dhihniya saas isticmaal haddana dharkan galgalinayna insha Allah dagaalan badan kadib waa kana dharkii baan galiyay yes Monday waa kaasa ma sha Allah saas darkooda oo ka wasaqad Monday ay xiranayso ama waxaan ku dhaashan dheeyda waxa loogu shubaa waa hawl fududays yar ma faahto cunuga xataa hadaa bartid asaga dharka hagaajisanay meeshas gali u baadaysa waa kaas mid kasta waxaan galiyay cambuurkii xijaabkii waa kaas cambuurkii xijaabkii iyo surwaalkii aan u galiyay waa kaas ma arkaysin taas loogu wada diyaa ilaa hoosna waxaan u dhigay dharkii dugsiga ay ku aadi lahayd oo markiisan aan lahayn caadiga ah ayadan kala bara saasaan ugu waxayna marka hadda my princess dharkeeda diyaar waaye dhag waaye ma fahmaysaa saas iyadana cunugiina wuxuu baranayaa organize ku baranayaa oo adigina kuma dhibaayo because cunuga hadhow saasa ugu wadid wuxuu baranayaa sida wax loo organize kareysto because hadda she is 5 year old so waa inay barataa in ay qof mas'uul noqoto marka waxyaabo waxa jira ilmaha ku caawin kartid inay mas'uul noqdaan sida adiga oo waxyaabo u fududayna hawsha u xaysid geeskaasna waxaan u galiyay hadda socks-ka ka dhimana meesha ma galinin inta waxaan u galiyay hoos geliski waaye geeskaas ugu jira midii kalarkay rabtay kala soo baxaysa ma fahan soo marka saas insha Allah bahashaas linkigeedana hoosna inay soo dhigaa gabdho ka faa'iideystade baasha way caawis hadda xabadan bis ayna tusamoogay hatta Imraan waa haystaa saas qolo mid Saturday Friday de hal xabon ba ayna tusamoogay qasamaan labadaba ina wada aragtiin marka waa kaasa asagana hadda intiisi u baagreena u hagaajinaya dhag
life is easy hadda kadib markii dharka la dhaqo xaggan baan fariisana dharkoodii iskuulka baan fadhiga ku soo diyaarina waxaan leeyahay qof kasta ha soo gashto ha gashto subaxdiina waa garanayno markii maanta maxaa waa Thursday god get Thursday dharkeedii la soo baxan baadhay cunugi easy dhab intuu ka siisana maantii markuu imaado galabtii haddii dharkaas ay wasaq yihiin waxa waaye dharka laundryga uu ridaysa waa ka waxaynay haddii isan wasaq ahayn meel ba u sureysaayo dhididka uga qalalaayo waxa waaye suu ugu noqdo Thursdaydii kale ma fahanti so Thursday markay la baxdo waa iska xareynaysa haddana bari maxay la baxay Friday haddana la baxaysa dharkeed cunugina waxay noqonay inuu soo hal mar ku noqonin everyday adigina noloshaada easy kaaga dhigay kabraad socks raadi qababa orod qajajac waxa waaya waa laga fiican yahay ma fahanti marka insha Allah I hope ina inii faa'iideeyay more waxyaabaha isticmaalana insha Allah waa in la soo socodsiina ee meelahan ka soo gadgado